أعوذ بالله السميع العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رير أهل الذكر دمان مeel kasta adduunka uga nooshiin jimco wanaagsan idin leeyahay. waa barnaamijkeenii axlaaq qisas soo dhawaada maasha allah. walaashin way idinka maqneed waqti dheer, waxay idinkaga maqneed iyo wixii qabsaday gadaal idinkaga soo sheegi doonaa macnaha insha allah. laakiin hadda qiso cajiib jiddan idiin soo daynayaa. intaa maqnaa qisooyinku isku aruureen insha allah waa idinla qaybsan doonaa rabbigay hadduu qadaro inta awood u yeesho. waxaan u gudagalayaa qisadeenu. waxay la soo xiriirtay gabar abaaye ah. waxay igu tiri abaaye filsan aadan kugu hambalyeynayaa kheyraadkii nimcaadka walaalahaaga aad la qaybsanaysid iyo maaragtay nimcada aawadid. midda xigto anigana waxaan kula qaybsanayaa farxaddii aan faa'iide. abaaye waxay tiri waxaan kusoo biiray sanadkan hadda aan ku jirno bilowgiisii. snapchat-ka ku aawa ogtiin sorry. waxay tiri abaaye filsan waxaan kasoo jeedaa reer faqiira oo aad iyo aad u tabaalaysan. waxaan isku dayi jiray inaan reerkeena dabaro, wax un noloshooda aan ka dabaro. waxaan u shaqayn jiray reer aan u shaqayn jiray. markaan tan ka tago mid kaleetood noloshayda waxay ahayd asaas guryo un baan ka shaqayn jiray. shaqada horta ceeb maahan, mid yar iyo mid weynba. marka waxay dhahday abaayo halkaas anigoo ku sugan xaaladda noloshana ay igu adag tahay ayaan ku bartay. waxaan kusoo biiray gruubkaaga waa sanadkan hadda aan ku jirno bishiisii koowaad 2021ka. waxay dhahday abaayo waxaan qaatay waanadaadii iyo dhiirigelintaadii. waxay dhahday waxaan bilaabay inaan suuratul baqara barto iyo dikrigii aadna noo sheegtay oo na tiri barta. waxay dhahday waa sanadkan hadda aan ku jirno bishii koowaad suuratul baqara waxaan soo gatay tiri kitaabka qalinka wato waa xifdiyey, ajri xasanaad allah kaa siiyo. waxay dhahday dikrigi laa xawla walaa quwata illaa billaah iyo salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam aan bilaabay akhrintiisii. suuratul baqara waan bartay, waxaan bilaabay sida u akhriya tirina u akhrino oo maalin kasta aan la imaano oo la imaado aan ugu tiriyaan u bilaabay tirinaan u akhristo. wallaahi waxay tiri filsanay, waxay tiri abaayo hal mar aan nolosheeda isbedeshay. wallaahi gabadhaas way dhaaranaysaa aad iyo aadna way u faraxsaneeda maasha allah tabaaraka raxmaan. dhammaantoodba horta waa saas, kheyr allah siiyo, allah barakeeyo ayaga dhanba. waxay dhahdaa abaayo filsan ilaa baan ku dhaartay waxaan galay tiri nolol aan noloshayda ku fikiraynin tan aa geli doontaa xataa kuma riyo jirinay dhahda. wiil maasha allah tabaaraka raxmaan, diin u saaxiiba, akhlaaq u saaxiiba, noloshii oo maaragtay aan ka shaqaynayay oo dadka aan walaalaha guryaha aan kasoo shaqaynayay xooggeedii ku shaqaysanaysa ceeb maahan taas aan ku shaqaysanayay tiri macnaha faqiirtinimaa laga hadlaayo lagama hadlaayo shaqada. halkaas aan joogay walaa hal maraan kasoo booday tiri pow aroos aana filaynin oo aana ku fikiraynin aan helay. waxaan helay tiri nolol cusub, guri qurux badan, sooj qurux badan, nolol wanaagsan. inaan hadda shalay waxay ka fikiraysa intay waxay dhahda abaayo shalay waxaan ka fikirayay waalidkay inaan wax un kusoo biiriyo, laakiin waxaan galay tiri nolol khiyaali ah. wallaahi nolol khiyaali aan galay tiri oo aan ilaa hadda sadaqi la ahay tiri maasha allah tabaaraka raxmaan. haddana jaceylka maxabada lay siiyey you can imagine dhahda abaayo ma malaysan karaysid. ilaahay subxaana wa tacaala boqorkaa ha u zaa'idiyo. farxaddaasaan rabay tiri inaan kula qaybsado. waxa waaye xaqiiqatan qiso cajiib ah. waxa aan ka faa'iiday tiri suuratul baqara iyo dikriga iyo kheyrka iyo nimcadii aan nafartay. gabdhaha qisooyinka markay soo daynayaan ee dhahayaan intaana ka faa'iida abaayo filsan saana farajkaana iigu furma farajkaana igu fur waa yaabi jir. walaa waxaan dhihi jiray tiri maybe lacalla inuu kheyr haddana qur-aanka ilaahay inuu faa'iido leeyahay waan dareemaya. laakiin tan maanta waxay tiri waa qisadeeda maasha allah tabaaraka raxmaan. ilaahu zaa'idiyo, allah u barakeeyo, baarakallah maasha allah. marka waxaan leenahay baarakallahu lakuma wa baaraka calaykum wa jamaca baynakuma bilkhayr. aan leenahay guurkaas kii lagu nagaado oo ubad kheyr qaba ilaahay kala siiyo. allaha ka dhigo guri islaama waaye maasha allah tabaaraka raxmaan iyo nolol cusub.
abaay waxaan leenahay allah kuu barakeeyo gurigaaga iyo noloshaada cusub midda xigta waxay tahay in gabdhaha dhan waxaa laga dadaala gabar kastoo guuraadis ah tariirinadan insha allahu tacaala biidnillahi kariim ka qayb qaado oo kusoo bir haddaa hore ula socotana maasha allah waaba qof aad ii yaqaanaaba tahayba muhiim ma aha inaan kuusii sheekeeyo because adiga waxaa wataa reer ahli digraa almost noqotay midda kaleetood waxay tahay snapchatkeyga kusoo biira insha allah oo maaragtay naga soo mid noqda intii aan hore snapchatkeyga ilaga soconin oo gabdhaha youtubeka ku jiraan sheegaya igala socdaan qeyri baraka amba gabdhaha gruupka qolka amahaata ahla dikri iyo qolka saliga waxaa marka u jawaabayaa gabdhihii walaalahayga ahaay ee intaasoo sano igu xirnaay ee iga walwalsanaay ee isoo raadiyey wallaahi aad iyo aad idinkaga mahad celinayaa because waxaan dareemay inaan walaal leeyahay waxaan dareemay keliya aana qeyrkeeda la jecleen ee idinkana qeyrkay la jeceshihiin waxaan dareemay inaan nafsadiina saamudmo inay noqoto u jeclahay inaa idinkana aad tayda u jeceshihiin aan dareemay ilaahay ajri xasanaad allah idinka siiyo qof kastoo isoo raadisay waxay i tusisa meesha aan ka joogo taasaa ay tahay macnaha soo raadinta ay soo raadiseen horta waa mid waxa aniga aan ayaanta u maqnaa waxay aheeday gabadhayda curad ilaahay ii caafiyo aalluka wax ka gaareen oo kuftay operation iga gasha ama khaliin insha allahu tacaala biidnillahi kariim bishaan markay dhammaatan rajeyna in laga furo laakiin 2 bilood dhulka ma dhigi kartaa la dhahay igu soo duceeyey inuu ilaahay lugteedu caafiyo iyo caafimaad ii hesho